laga raysay wixii hore Al-Hilal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiif ah bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilal Herbal Online waxay leedahay gargaarka degdega ah oo qofka xanuunsanaya gurigiisa lagu soo daaweyn alxamdulillahi rabbil alamin wa bihi nastaciinu ala umuuri dunya wa diin wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd ayuha al-ikhwa wal akhawat haddii aad tahay qof xanuunsan ciladahan masiga loo yaqaanana la xanuunsan muddana la xanuunsanaa dhakhaatiir tagay wax laga fahmi waayey ama sistamyadan cilaajiyada meelo badan soo maray welina xanuunsanayo waxaan idinla wadaagayaa daawo mujarab ah oo 7 geed ka samaysan saliido 7 ka samaysan quraankii lagu akhriyay oo loogu talagalay in lagula dagaalamo cudurrada noocaas oo kale ah haddaba marka dad baa waxay su'aal isweydiiyaan ama anigaba la i weydiiyey daawadan si qaabkay saameyn ugu yeelataa sixirka maadaama sixirku uu yahay wax la sameeyey xilligii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam la sixrayna quraankii uu iskaga daaweeyey oo quraan loo soo dejiyey su'aashaas marka runtii waa su'aal muhiim ah una baahan in jawaabteedii la helo daawooyinkan dabiiciga ah waxay la falgalaan jirka qofka bini aadamka ah cudurrada noocaas oo kale ah jinka sixirka isha markay qofka jirkiisa ay saameyn ku yeeshaan quraanka marka lagu akhriyo waxaa jira jiman aad u khibrad badan oo ku dhuunta qofka jirkiisa iyo saameyn fara badan ku yeesho meelo maaragtay gaar ah jirka ka daga ayaa jira daawooyinkan marka waxay u falgalayaan way ka saacideynayaan qofka mucaalijka ee qofka daaweynayo waxyaalihii jirka ku dhuumanayay in ay ku dhuuman waayaan oo korka laga mariyo daawadii afka laga cabo qaybahaas oo dhan marka xitaa toobinkii loo raaciyo xijaamadii loo raaciyo markaas jaanis ma helayaan ay jirkii ugu sii dhuuntaan ama meelo gaar ah ay uga degaan maxaa yeelay jirkii oo dhan daawadii ayaa saameynayso daawaduna aad bay u necab yihiin waxyaalahan shayaadiinta iyo sixirka in mar walbo de sheedaan baa markaasi yaa agta garaynaya oo wado oo shaqadiisii qabsanayo marka daawadaasi waxa weeye walaalayaal waa daawadan aad arkaysaan fakku sixir al-arham wa sixir dam al-hayd ayaa la yiraahdaa sidoo kale daawadan khaasatan dumarka oo kale waxay u samaysaa dumarka uu ka dib dhacay macnaha uurka oo kale gabadhii madhalays ma ahan cilad kalena ma hayso haddana uurkii 2 sano 3 sano bay ninkii isqabaan ciladaas marka waxay u baahan tahay in la xaliyo xalna loo helo marka daawooyinkani aad bay u saameynayaan faa'iidooyin badanna u leeyihiin qofka noocaas oo kala ah marka insha Allah ta'ala wixii faahfaahin dheerana lambaradannada ayaad nagala soo xiriiri kartaan xarunta Nairobi daawooyinka waan u dirnaa dhammaan wadamada inta badan dadka ay ku soo dalbadaana si nabada ay ku gaaraan insha Allah ta'ala lambaradaas aad ka soo dalban kartaan wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo moogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj Al-Hilal Herbal Online waxa kale oo laga daweyn macaanka dhiigkarka rheumatismka maqaarka kiliya xanuunka
masaaj toobin waafaqsan sunnada ilarjiga gastriga iyo daawo ka caawinaysa dhalmalaanta jinka iyo umusabiyaanka xarunta alhilaal habol online waxay kaa daaweynaysaa riyooyinka baqdinta leh iyo qarowga ayada uu diyaar kugu yahay specialist Dr. Axmed Cilaad daawadiisana lagu caafimaaday haddaba waxba yaan hadal kugu daalinine soo booqo xarunta alhilaal habol online oo ku taala xaafadda Islii Second Avenue gaar ahaan qaybta 7 Street wixii faafayntaasi dheer kala xiriir telefoon lambarka